السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta insha allah hadduu ila idhaahdo waxaan install garaynaynaa SSH. saad u jeediin systemkii waa inoo diyaar. username passwordkeygii ayaan ku galay. waa Kali Linux oon install garaynay. waxaan tegaynaa terminalka. farta ayaan weyneynayaa amba spaceka ayaan inii weynayaa si aad si fiican u aragtiin. waxaynu ku shubi doonaa SSH ayaanu ku shubi doonaa systemka amba aan ku install garayn doonaa inagoo meel fog ka maamuli doona hadduu ila idhaahdo. marka ugu horeysa waxaan ku qornaa commandka la idhaahdo sudo apt update. kadibna wuxuu ku wareysanayaa amba uu ku warsanayaa passwordkaaga ayuu ku weydiinayaa. kadib password markaad ku qordid downloadingkii updatekii ayuu inoo bilaabayaa. updateku markaa waqti ayuu qaadanayaa oo soconayaa. waqti ayuu qaadanayaa updatekaasi wuxuu update garinayaa all packages amba tuulalkii aan u baahnayn ee Kali aan ku isticmaali lahayn. because Kali markay cusub tahay ee soo download garaysid waxaad u baahan tahay inaad tiraahdo sudo apt update. commandka markaad ku qortid updatekan ayaa soconaya. packageyadan ayuu internetka ka soo download garaynaya. so inta aanad sameynin waxaad u baahan tahay in uu systemkaagu ku xidhan yahay internetka marka ugu horeysa. so installationkii amba updatingkii ayaa inoo socda. updatingka markuu dhameeyo haddana waxaan odhan doonaa upgrade. marka waxaan rabaa inaan halkaa ku joojiyo oon isku soo noqono. hadda saad u jeedin updatekii waa dhameeyey. wuxuuna leeyahay 60 package ayaan haysanaa. marka isagaaba inoo sheegay waxaad samaysin buu leeyahay apt upgrade ku samee. so waan inaga masaxaya si aad meesha si fiican u aragtiin. apt upgrade halkii update ahay upgrade ayaan u bedelanaa. kabdidna upgrade-ka ayaa inoo bilaabay. su-aashan ay ku weydiinayaa do you want to continue? yes baan leenahay. why ayay ka dhigan tahay amba ya-du waa haa. kadibna kan ayaa ku socon doona. waqti ayuu kani qaataa iyadoo ay ku xidhan tahay systemkaagu siduu speedkiisu yahay. so speedkeenu ma xumo. aad iyo aad buu wanaagsan yahay. xoogaa inuu qaato ayaa laga yaabaa. installationkii ayaa inoo socda. upgradekii waqti yar ayuu qaadanayaa. wuu inoo dedejin doonaa. marka faylalkaasoo dhan waa very important inuu kuusoo wada download gareeyo. because method exploit bad meeshan uga jeeda wuxuu kuusoo download gareeyo all the files aad ku shaqayn lahayd including Python. so faylalkii upgradekii waa inoo dhameeyey. wax kastana waa inoo diyaar. hadda waxaan bilaabanaa inaan hubino IP address-kan haysano. so waxaad ku qoraysaa IP address. laba IP address ayuu ku tusi doonaa. IPv6 oo number 6 u taagan iyo IPv version 4 oo 192.168.0.21 ah. broadcastigeenuna waa 0.255. so saad uga jeediin waan haysanaa IP addresskeeni waa sax. so intaan SSH aanad ku install garayn waa inaad IP addresskaagu sax ahaado. intaan markaan hubino waxaan leenahay clear. IP addresska ayaan mar labaad eeganaa. so IP address sidana waa loo eegaa. iska clear garaynaynaa. waxaan ku qoranaa ifconfig. qaabkana waa loo eegaa. so kamaano kala duwan ayuu isticmaala. so ifconfig saad uga jeediin IP addresska ayaan hubinanaa. kor haddaanu baxo waxaa arki doontaa IPv6 iyo IPv version 4. so IPv6 IPv version 4 192.168.0.21 waad ujeedaa clear baan leenahay. IP address IP rootka ayaan eeganaa. meeshaan ka baxano default gateway-gina waxa weeye
amba internetkeenu waa 92.168.0.1 aan dibadda uga bixi karno. So kana waad iska hubinaysaa Claire baan leeyahay, spelling ayaa iga qaldamay. mar labaad ayaan ku celinayaa, waxaan ping u dirayaa inuu internetka u shaqeynayo www.somts.com website-kaygii ayaan hubinayaa. reply ayaa ii yimiday sax. control C ayaan taabanayaa si aan u joojiyo. so wax kastana waa okay. kadibna Claire baan leeyahay, waxaan pingi u dirayaa www. any IP address amba any website aad rabtid ayaad halkan ku qori doontaa. so halkan waxaan ku qorayaa ping. weedha ping baan ka iloobay. Claire baan leeyahay, ping waxaan ku qoranaa 8.8.8. oo Google DNS ah. waad ujeedii reply ayaa inoo soo noqday, wax walba waa sax. internetkeenu wuu shaqeynayaa. 7 packet ayaan helnay. IP addresska waxaan eegaynaa internetkeena. so ping 192.168.0.1 ayaan odhanaa. kadib Claire ayaan leenahay. any other IP address kale oo rabno ayaan hubin karnaa. facebook.com ayaad u diri kartaa. reply ayaa ku soo noqday. that means internetka wuu shaqeynayaa. so saas ayaad marka ugu horeysa iskaga hubinaysaa inuu internet ku shaqeynayo, wax walibana okay yihiin. so internetku hadduu ku shaqeynayo, that means wax walba waa fine. you connecting to the internet for your Kali Linux. bilaabana installationkii SSH. so waxaan ku qoranaa sudo apt install open. spellingkan iska saxana, waxaan leenahay open SSH dash server. waxayna leeyahay waa ku download gareeyay package-ka. waxaa kaloo haysataa already mid cusub ayaad haysataa. so marka haddaad hore u install garaysay, installingkii aan wadnay ayuu inoo raaciyay. laakiin haddii aanad hore u install garayn, manually ayaad u install garayn kartaa. so that means SSH open SSH server waa inoo diyaar. waxay noo suura gelaysaa markaasi inaan si remotely ugu soo galno over internet innaga oo kaligeenii dhex tegin. ayaan usoo geli karnaa remotely. marka waxaan tijaabinaynaa oo kale systemka inay wax kasta on yihiin. so waxaan ku qori doonaa sudo system ctl star ss star spelling waa iska saxdi star ssh enter. markaad taabatid, haddii a message wrong soo noqdo, taas min sax ma, laakiin haddii message soo noqdo wax kasta waa okay. hadda waxaan gelinayaa SSH ayaan ku qorayaa terminalkaygii bay laptopkayga amba macbookayga. kadibna waxaan raacinayaa usernameka cilmi@192.168.0.21 IP addresska for Kali Linux. kadibna wuxuu weydiinayaa passwordka ayaan ku qorayaa. markaan passwordka ku qoro, waxaad arkaysaa systemkii Kali Linux ayaan dhex joogaa. wuxuu leeyahay last login timekii ayuu kuu sheegayaa. usernameku waa cilmi. IP addresska SSH ayaan ku qoray. passwordkiina waan geliyay. marka somts.kali ayaad meesha uga jeediin. so wax walba waa inoo diyaar. hadda macnaha waan dhex joognaa Kali Linux remotely ayaan u galnay. okay, so haddaan idhaahno IP addresska xaggan iga tus, wuu ku tusayaa IP addresski. so 192.168.0.21 ayaad uga jeedaa meesha adiga oo computerkaagii kale ku jira. so waxa kaloo lamid ah haddii aad isticmaalaysid party windows iyo wixii la midka isla same idea amba same ayaa loo isticmaalaya. Kali Linuxkii ayaan hadda dhex galay faylkii SSH-ta.
filekaasi markaa dhex gashid haddii aad rabtid fileka waxbaad ka bedeli kartaa haddii aad jeceshay inaad wax ka bedeshid so filalkii saad u jeedid haddaad rabtid fileka waad bedeli kartaa so Kali Linux filalkaasi information badan ayaa ku jira haddii aad rabtid akhri informationkaas oo la soco in information ay ka horeyso calaamadaasi hashta hash signkaasi macnaha ma akhriyo so halkaa waxaad uga jeedaa port 22 ayaan isticmaalanaa haddaad rabtid boorka waad bedeli kartaa marka filekani waa filekii SSH configuration filekii wey saad markaa ula socotiin filekaasi haddaad jeceshay waxbaad ka bedeli kartaa haddii kalena sidiisa ayaad ku dhaafaysaa so laba dot iyo q ayaad kaga bixi kartaa haddii aan usoo noqono dhinaceenii computerkaygii oo next macnaha that means waan ka baxay haddaan rabo inaan ku noqdo SSH space then username-kaygii for Kali and then calaamada at ayaan ka horeysay 192.168.0.21 kadibna passwordka ayaan raacinaya kadibna waaban joogaa so waxaan tijaabinaa markaa waxaan ku qornaa ls waxaan fiirinaa filalka ku dhex jira Kali so ls will show the list aad soo barateen desktop documents downloading music pictures public template videos intaas oo file ayaa ku jira desktop directory-ga ayaan tegaynaa so change the directory desktop ayaan joognaa ls haddaan nidhaahno wax alla wax ku dhex qoran amba file dhex yaala ma jiro waxaan leenahay mic directory ku dhex samee directory-gana waxaan u bixinaa test amba tijaabo test baan u bixinay ls haddaan nidhaahno waad u jeediin test file la yidhaa ayaa amba folder la yidhaa ayaa dhex yaala so haddaan dhinaca Kali tagno isaga laftiisa oon ls nidhaahno wuxuuna tusayaa waa inaan tagno desktop first kadibna ls aan nidhaahno kadibna waxaan haysanaa test file ah ayaa inoo yaal that means file cusub ayaan samaynay so waxaan proof garaynay in Kali inagoo meel fog joogna aan file ka dhex samayn kartid so hadda waxaan rabaa filekan in iska delete gareeyo so waxay nii proof garaynayaa in filekii aan ka masaxnay si graphicala kumana jiro pinga amba meesha pinga marka haddii aan tagno remote-keenii oon ls nidhaahno mar labaad waad u jeediin filekii waa ka maqan yahay so saa darteed ayaa markaa remote-ku faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay waad mahadsantihiin